cabashadiina siyaabo badan oo kala duwan ku muujin kartaan ku muujin kartaan ay kamid yihiin waxa kamid ah oo siyaabooyinka ku gudbi karno siyaabo badan oo kala duwan ku muujin kartaan waxa xaq u leedahay fiiri qof kasto muwaadin ah ama naafaha ahaado ama qof kale oo caadi ah ahaado dadka lama kala saarayo markaas banaan ku muujin kartaan banaan ku muujin kartaan maanta hadda isku xirantihiin dadka naafada ah hadeeyihiin dad isku xiran maxamedow banaan ina abaabushaan haddii jirto hay'ad idin dulminayso hay'adda horteeda inaad tagtaan xaq dastuuri oo leedihiin Soomaaliya dadka ma ku dhiiran karaan liajli warujaa difaacaya adii qofka maxaa diiday ku dhiiran adiga qof naafiri qof naafa ma adiga hadda maxaan ku dhiiran gelinay dadka naafada ma waxaan leenahay banaabaxay soo sameey iyadoo ciidan u gaara dadka naafada iyo adu gaara oo dadkaas ilaalinaysa banaabaxooda inay nabad magaalada ku maraan ilaalinaysa idoon jirin soo baxa ma leenahay hal dilamiya qof naafa dhibaato way moogtay waxaas caqabad waa xeerka hadda idinka taqaanaan Ismaaciil haddii xeerkaas uu qof ku xadgudbo oo uu dhaco shaqada leedin diido wadanka maxkamadaha tagaysan ma qareenaa joogo salahan qareenada lacag rabaan maxamedow maxkamadda lacag rabtaa qofka naafadana ma shaqeeyo intuu ka keenay financialkaas yaa bixinay waxa u balan qaaday walaalka Ismaaciil kiis walba oo asiga quseeyo oo qof naafa ah ku saabsan lagu xadgudbay ama takoor lagu sameeyay in xafiisyada dawladda marka laga soo tago garsoorka laamiis ugu sareeyo in la geeyo diyaar ah waxa aniga ka qareen ahaan taas u balan qaadaa xeerka la ansixiyay oo madaxweynuhu ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka maray 5% uu qoraa 5% haddii maxkamad u tagno dacwoono maxkamadii soo saarto xeerka awal buu looga moogtaa oo dhacdo waa inay bangiyadu dhan 5% bixiyaan yaa nooga qaada bangiyada sidaas looga qaada wali arintaas ma idinka dhaxdiina ma ka arinsateen ma ka doodeen doodoodii waa socotaa dabcan ma sameysay in isku tagtaan arintaas ina qaadaan maxkamad ma geyseen weynoo socoto maanta marka adiga shakhsiyan u socotid marka u socotid si urur ahaan u socotid ama hay'ad ahaan u socotid waa ka duwan tahay inay eega naftirkooda ay urur u gaara ay sameystaan ismaalgeliyaan xafiisyada dawladda laamooda ugu sareeyo xataa xafiiska madaxweynaha inay shaatiga qabtaan oo ay dhahaan anaga xuquuqdana idinku leenahay 5% adaana gacantaada ku saxiix sharcigan noo dhaqan geli 5 qof ka arbaan inuu shaqaaleysiisid ana xafiiskood meel loogu soo moodin madaxweynaha Soomaaliya xafiiskiisa hadda qof naafa uma shaqeeyo ku dacweynina idin kara waa inay istaagtaan horta in hal mar dhaqaajisaan wax maxkamad ay geysaan maxamedow adiga moogtaa dadka naafada riskigaas ma bareeri karaan ma ku dhiiran karaan in la baro waaye in adkaysigaas la baro cilmi ahaan loo dhiso markii gaaraan kadib qofkii dacwoonay markaas la wada dacwo karaa mar badan xataa waxa arkay mashaariic ayaga magacooda lagu soo qaadanayo ayaga dad ku laawlay xataa waxbay ahaale dad aan ayaga ahayn oo dad caadi ah lacagtaas qaadanayso naafa ahayn tababaro ayaga loogu talagalay jira xataa oo hay'adaha caalamiga ay bixiyaan sanad walba budgetiya lagu bixiyaa inta marka laga soo taga xataa ayaga jawaabkooda kuma dhacay dad kale jawaabkooda ku dhaca fikrad khaldan laga aaminsan qof naafa wax bartay aniga hadda saan u socdo labiskayga la diidan yahayba labiska aan labistaa la kula dagaala oo sidee wala qofkaas uu labisan yahay waa qof ma aragtay nahaab waa qof naafa min dhool ma beentiisu waa ma jira horta xiriir dadka naafada iyo dawladda ka dhaxeeya hay'ad kaliya yaa ku dheeran karta in dadka shaqaaleysiiso dadka naafada oo fursadna siiso